بسم الله الرحمن الرحيم. aan wax ka barano weydiintan ah what is crowdfunding. haddaba crowdfunding ama maalgelinta dadweynaha waa hab lagu ururiyo raasumaalka ama maalgelinta mashruuc ama ganacsi iyadoo laga aruurinayo lacag yar qof waliba oo danaynaya. lacagtaasna waxaa laga qaadayaa dad tiro badan waxaana la adeegsadaa aaladda ama mareegta internetka si loo helo lacagtaas. waxaana sidaa loo yeelaa in lagu taageero ama lagu maalgeliyo mashaariic gaar ah ama mid guud. markana aan isla aragno noocyada kala duwan ee loo kala saaro crowdfunding. waxaana ka mid ah 1. reward based crowdfunding, abaalmarin ku salaysan maalgelinta dadweynaha. haddaba lacag bixiyaasha waxa ay helayaan abaalmarino aan dhaqaale ahayn oo ay ku bedelanayaan taageeradooda. tani waxay noqon kartaa badeecad, adeeg ama aqoonsi. tusaale aan dhahno qof baa raba inuu bilaabo harqaan, lacagna ma haysto sida kirada, qalabyadii kala duwanaa ee harqaanka iyo wixii la halmaala. haddaba aan dhahno waxa uu adeegsanayaa reward based crowdfunding. marka dadkii lacagta bixiyey si loo aasaaso harqaanka waxa uu ugu bedelayaa milkiilaha inuu dhar u tolo mustaqbalka oo lacagtoodii ay ku maalgeliyeen aasaasidda harqaanka waxaa loogu bedelayaa adeega tolitaanka dharka marka ay u baahdaan mustaqbalka. midaasna waxaa loo yaqaanaa reward based crowdfunding. Number 2. equity crowdfunding, dadweynaha bixiyey lacagta si loo aasaaso shirkaddan waxa ay ka mid noqonayaan milkiilayaasha shirkadda oo waxaa loogu bedelayaa saami ama sheer. tusaale aan dhahno waxaad rabtaa inaad aasaastid warshad soo saarta caanabooraha, mana haysatid lacagtii aad ku aasaasi lahayd. haddaba haddaad adeegsatid equity crowdfunding, cid waliba oo lacag bixisa waxa ay ka mid noqonayaan milkiilayaasha warshadaas. 3. debt based crowdfunding ama peer to peer lending, lacagtan aad ka aruurisay dadweynaha waxaad u aqoonsanaysaa inay kugu tahay deyn oo dadweynaha bixiyey lacagta si loo aasaaso shirkadaada ama ganacsigaaga. marka shirkadaada ay bilowdo inay faa'iido soo saarto, cid waliba dib ayaad u siinaysaa lacagtoodii iyo welibana dulsaar. ogow midani waxa ay liddi ama cagsi ku tahay qaybtii labaad ee ahayd equity crowdfunding. tusaale aan dhahno waxaad rabtaa inaad aasaastid maqaayad, mana haysatid lacagtii aad ku aasaasi lahayd. haddaba haddaad adeegsatid debt based crowdfunding, cid waliba oo lacag bixisa marka ay maqaayadaada bilowdo inay faa'iido soo saarto, lacagtoodii dib ayaad ugu celinaysaa. 4. donation based crowdfunding, dadweynaha bixiya lacagta si loo aasaaso shirkaddan ama ganacsigan ama hay-addan wax ay u niyeysanayaan sadaqo oo ma sugayaan in lacagtoodii ay dib u helaan ama badeecad ama adeeg loogu bedelo, oo waxa ay rabaan inay garab istaagaan qofkan raba inuu ummadda adeeg u qabto ama raba inuu ganacsi aasaaso. tusaale waxaad rabtaa inaad aasaastid hay-ad khayri ah oo gacan qabata caruurta danyarta ah si ay wax u bartaan. haddaba dadweynaha bixiya lacagtii ay ku shaqayn lahayd hay-addan waxa ay u arkaan tabaruc, mana sugayaan in dib loo siiyo ama wax kale ay hay-adda ugu bedesho. gunaanad crowdfunding ama maalgelinta dadweynaha waxa ay noqotay qaab u suurtagelisa dadka leh hal abuurka inay lacagta maalgelinta ka helaan dadweynaha si ay mashaariicdooda u horgeliyaan. oo haddaba dadka kuma qasbana inay bangiyada ama hay-adaha kale ee maaliyadda ay lacag ka sugaan ama ay deyn ka qaataan. xog dheeraada oo ku saabsan dulsaarka fadlan ka dhegeyso lifaaq hoose oo aan hadda kor uga soo hadalnay. mahadsanidin, waa inoo markale haddii rabbi idmo.